haddaba u fiirso bishaan marka ay dhalato bilaha kale waxay uga beddelan tahay adduunka dhan baaba isbeddelahayaba nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa kaana awalu laylatin min shahri ramadaan habeenka ugu horreeya haddii la gaaro sufidat shayaaiin wa maradat ljin shayaadiintii baa la silsiladaynayaa oo la katiinadaynayaa oo la xirxirahayaa waa shaqada koobaad oo habeenka ugu horreeya isbeddelka dhacaya wey wagulliqat abwaabu nnaar falam yuftax minha baab naarta irdaheedii baa la xirayaa hal iridoo ka mida la furi mahayo wafutixat abwaabu ljanna falam yuglaq minha baab jannada irdaheedii baa la furayaa hal iridoo ka midana la xiri mahayo isbeddelka dhacaya wey oo bishaani ay wadato wey habeenkaa ugu horreeya shayaadiintii waa lagaa xirxiray jannadii irdaheedii waa laguu furay naartii irdaheedii waa la xiray maxaa laga wadaa naarta irdaheeda waa la xiray jannada irdaheeda waa la furay macnaheeda daahirkaa sidaas ay tahay waa muxtamal culammada ahlu cilmiga qaar waxay yidhaahdeen waxa weeye naartii irdaheedii baa la xiray macaasidii iyo dembiyadii naarta lagu gelahayey asbaabihii lagu samaynayey baa xirmay jannadii irdaheedii baa la furay daacaadkii iyo xasanaadkii la samaynayay oo jannada lagu gelahayeyna waa la fasaxay oo waxa weeyaan qofkii waa loo sahlayaa oo waa la waafajinaya ama jannada sideedii baa loo furay naartana sideedaa loo xiray intaas ka bacdi wayunaadii munaadin waxaa malagu naadinayaa yaa baagiya alkhayri aqbil wa yaa baagiya ashari aqsir waa arrinka afraad weey malag baa wuxuu naadinayaa qofkii khayr doonayo soo qaabil ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay waa kuu naxariisanayaa dembigaagii wuu dhaafayaa ilaahay subxaana wa tacaala waa ku jeclaanayaa war khayrkan iyo daacadan ilaahay ku soo qaabil oo soonka bishaan iyo qiyaamkeeda iyo sadaqadeeda iyo khayrkeeda ilaahay ku soo qaabil war qofka shar doonahayo xumaan dalbahayo gaabso naartii haddii lagaa xiray shayaadiintii lagaa katiinadeeyey xaggee u socotaa sharta ka istaag marka ugu fiican oo qofku waxa weeyaan waxyaalaha dembiyada iyo macaasida uu ku jiro uu kaga dhex bixi karo oo uu kaga badbaadi karo waa markaan weeyaan fursadda qaaliga ah walidaalika waxaa arkaysaa dad aad u fara badan ayaa ramadaanka toobad keena ilaahayna toobadoodaas waafajiyaa kadibna ilaahay uu istiqaamo iyo toosnaansho ilaahay ku arsaaqa u fiirso shayaadiintii baa lagaa xirxiray maxay tahay marka dadka waxaa fasaadinaya waxaan arkaynaa dad badan oo fasaad samaynaya waxyaalo badan ayaan arkaynaa haddii shayaadiintii la xirxiray maxay tahay fasaadka socdaa waxa weeyaan naftaada shayaadiinta la xiray oo jinka ah haddii la xiray shayaadiinulinsi lama xirin kuwii insiga ahaa shaqadoodii bay wadaan kii xaaraanta qasahayey kii heesaha iyo qinaaga iyo waxaadana dadka ku mashquulinahayey kii dadka ribada iyo qurunka uga lacagaysanahayey kuwii shayaadiinulinsiga ahaa shaqadoodii bay wataan nafta qofka la xiriirta ayaa iyaduna sidoo kale qofkii fasaadinaysa caado xun oo qofku uu leeyahay baa jiidanaysa shayaadiintii haddii la xiray ugu badnaa oo qofka waxaan ku kadinayey qofku waa inuu isxakameeyaa oo caadada xun iska gooyaa oo ilaahay subxaana wa tacaala daacadiisa iyo khayrkiisa uu soo qaabila arrinka shanaad oo xadiidkaa ku sugan waxa weeye walilaahi cutaqaa'u min annaar wadalika kullu layla ilaahay wuxuu leeyahay kuwa uu naarta ka xoreeyo waana habeen kasta xorayntaasi waxa weeyaan xorayn aysan naarta weligoodba gelahayn maba gelayaan habeenkaas baana laga xoraynaya waana habeen kasta ee ma ahan waxa weeyaan habeenna gaara ma ahan sida la yidhaahdo awaluhu raxma awaluhu makfira wa awsatuhu raxma wa aakhiruhu cidqu min annaar xadiidkaa daciif weeye wax sugan maaha tobanka hore waa dembi dhaaf tobanka dhexe waa naxariis tobanka dambe waa naarta oo la iska xoreeyo daciif weeye ma sugna ee waxa weeyaan naarta oo la iska xoreeyaa waa fii kulli layla soddonka habeen oo bishu ay tahay ama 29 habeen kasta ilaahay subxaanahu wa tacaala cadad ilaahay uu og yahay tiradooda ayaa ilaahay u naxariisanaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jeclaanaya
oo ilaahay cadaabkiisa uu ka xoreynayo waana habeen kasta maghfirada iyo dambi dhaafkuna waa habeen kasta weeyaan raxmaduna waa habeen kasta weeyaan fi kulli layla ay kulligood imaanayaan